السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Daawadayaal sida maqaal dheer aan ku hadalnay isbuucii aanu soo dhaafnay annagoo ka ishtakoonayno maamulka degmada Jalalaqsi iyo dhammaan hay'adaha soo gelaya degmada Jalalaqsi. waxaan gudbinay cabashadeena dhammaan laamaha ku shaqada leh dowlad goboleedka Hirshabelle. waxaa dhacday dhalinyaro ka soo jeeda beelaha reer Ciise degmada Jalalaqsi in si sharci darro ah ku xirxiro gudoomiyaha degmada Jalalaqsi amba maamulka degmada Jalalaqsi asagoo ku andacoonayo waryaada sidee baad uga hadasheen social media. sidaa darteeda ayuu gudoomiyaha degmada Jalalaqsi wuxuu ku xirxiray waxgaradka beelaha reer Ciise. waxaan dulintahay dhammaan hay'adaha degmada Jalalaqsi iyo dhammaan maamul goboleedka Hirshabelle, gaar ahaan madaxweynaha Hirshabelle Mudane Cali Guudlaabe iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Mudane Cali Jeete. mudane waxaa anagoo ah dhalinyarada degmada Jalalaqsi gaar ahaan beelweynta reer Ciise gudnada soo gashay hay'adaha bixiyaan degmada Jalalaqsi in aan waxba aan ku lahayn degmada Jalalaqsi. xitaa shalay daraad waxaa la qaybiyay abuuro loogu talagalay beeraleyda degmada Jalalaqsi. waxaa si kale ah wax jareen waxaan idinka codsanayaa dhammaan hay'adaha dowlad goboleedka Hirshabelle iyo dhammaan mas'uuliyiinta khusaysa arrinka in ay si dhaqso leh ay uga soo jawaabto. waayo annaga haddaanu nahay beelweynta reer Ciise amba beelaha reer Ciise wax hay'adda na siiso inaysan jirin waanu ku sabiray waxna kuma siinayo ayaa ina haysato. marka waxaan dhammaanteena aan isku boorinaynaa in aan dhulkeena aan wax soo saarkeeda aan xoojino. sidaa darteed dhammaantiina fariintaan cid allaala cid ay soo gaarto waa inay share garayso ay subscribe ay nagu dadaasho. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala